السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ninkii Trump ahaa ninkii habarka qabay baa waxa weeye doorashadii ugu badiyay yaa marka kana isagoo xafladeynaya maanta marka taas waa la filanayay marka Mareykanka waxa weeye marabaan islaamayna doortaan yaa islaanta Hillary la dhahay horey u diideen yaa mid madow miya doonayaan marka ayadana gurigaaga iska daldaabay marka doorashada natiijadeeda waa taas ma jidaan marka waxa weeye asaga 277 cod ku helay ayadana 224 marka waxa weeye asaga 70 milyan oo qof baa mar walba la jirta yaa marka kaas natiijadii oo doorashada marka maanta Trump wuxuu noqon doonaa madaxweyne ugu horeeyay oo Mareykan oo dambi loo haysto yaa dambi fara badan baa loo haystaa marka waxa weeye wax la iska dhigay ma waa kana sida inta ujeedaan hal dhahay Trump wuxuu noqon doonaa madaxweyne ugu horeeyay oo Mareykan oo dambiile ah marka dambiyo badan baa loo haystaa marka yaantii hore intay doorashada bilaaban waxa ku socotay maxkamad ku socotay maxkamad case ku socday marka dambiyo fara badan baa loo haystaa marka waxa la rabay markii doorashada dhamaato in uu dib ugu soo laabto maxaa la dhahay maxkamadii waa hadii laga baday way laakiin maanta asabadi marka waxa weeye maxkamad dib ugu laaban sababta asaga iscafinaya yaa marka iscafinaya dambigiisa dhan uu iska tirtiraya xitaa kuwa asaga la jiray oo hore loo xiray oo xabsiyaal ku jiray waxa la filayay in ayagana la soo saaro oo dambiyada galan laga cafiyo yaa marka ninkan dambiyo fara badan baa loo haystaa weli dambiyo waaweyn baa loo haystaa soo jidaan waa kuwana dambiyo loo haysto dambiyada loo haysto waa dhowr iyo 40 bay gaarayaan dambiyadaas waxaa kamid ah deyn baa loo haystaa dad uu been ka sheegay waxa weeye maxkamad bay ka badiyeen marka waxa weeye diyo baa laga sugayay yaa diyo oo 100 milyan gaaraysa baa laga sugayay haddana waxa weeye dumar fara badan buu xoogay oo maxaa la dhahay ayagana sidoo kale case-kooda ku socday caruur xitaa uu farxumeeyay marka waxa weeye ninkan xaaladiisa ma fiicneen laakiinse ninkan waxa weeye dad quwad badan leh baa la jira yaa waxa la jira dad oo dawladda gacanta ku jirta baa la jira oo waxa weeye asagii u fududeeyay arrintii waxa kaloo la jira dad oo maalqabeen ah baa arrintii xitaa ka caawiyeen marka ninkan waxa weeye hadday cadaalad waddankaas ka jirto maanta ninkaas xabsi buu ku jiri lahaa yaa laakiinse cadaalad meesha ma jirto iska Afrika camal kale meesha bilaash Afrikaanka wax looga sheegay ma ahayn yaa ayaga Afrikaanka isku mid gooyay marka waxa weeye doorashada ugu badiyay marka halkaas buu soo guuri doonaa way xasuusan jidaan marka nin kale hadduu ahaan lahaa madow hadduu ahaan lahaa ama latino hadduu ahaan lahaa hadda xabsi buu ku qormi lahaa laakiinse waxa weeye ninkan waa landheere wey waa cadaan wey langaab maaha marka sidaa darteed waxa weeye jago uu tartabay oo uu weli ku badiyay yaa marka saas waxa weeye xasan sheekh ha u sheegin saas rari xasan sheekh waxa weeye doorashada wuxuu ugu dhegay yaa asagana ilba meesha la gartay yaa wixii criminal ahaa amaanahan doorashooyin ku qulqulaya marka ninkan oo Donald Trump intii ay loo tartamay doorashada waxyaalo badan buu ballan qaaday waxyaalaha badan uu ballan qaaday waa kuwana waxna kamid ah jidaan wuxuu dhahay arrinta Falastiin waa dhamaystiraya Falastiin dambe ma jiro soo yaa oo si 100% wuxuu ula jiriyaa kuwan la dhahay Israa'iil ayagana saas rabeen inuu asaga doorashada ku badiyo beebarmeen yaa marka arrinta Falastiin waxay tahay haddana arrinta Ukraine xitaa waxay soo jidaan Ukraine baa asaga iyo Putin baa saaxiibaha marka hubkii lacagta in laga jiri doono baa la filayaa haddana intaas kaliya ma aha xitaa dadka oo maalqabeenka ah oo asaga la jiray canshuurta in laga yareynayo bay filayaan oo markaas darteeda waxaa la filayaa waddankii in uu lacag badan oo diina la qaato haddana waxyaalaha kaloo la yaab kala weeye ninkan cunsur wey marka asaga wuxuu ballan qaaday in dad badan uu tarxiili doono haddii uu doorashada ku badiyo uu ku dhaartay in uu dad badan oo maxaa la dhahay weliba latino waxa weeye dadka mare ka yimaaday waddamadan oo Mexico iyo waddamada u dhow wuxuu ballan qaaday inuu dadkaas tarxiili doono intuu qabto uu basaska buuxin doono bal ayadoo ay saas tahay doqonnimadu waxa weeye asaga codaya yaa caqliga meesha lama isticmaalayo waxa weeye si caqnimo ah waxaas xoolaha yaa waxa la iska dhahay maaha waa kan artikelkan baa xaqiijinaya soo jidaan marka saynta ku jidaan journalka US Today oo maanta soo baxay dadkan latino la dhahayo dad badan oo codaya balla yaa marka waxa weeye hadaaya waxay mareysay 45% oo ayaga inay codayeen haddana waxa la sheegay in 56% inay asaga codayeen marka dadkii oo asaga dhaaranay baa codaynaya marka meesha waxa weeye dadka xoolo dad qaar xoolo wallahi la fikray yaa haddana intaas kaliya ma ahane asaga wuxuu ballan qaaday inuu Falastiin arrinteeda uu maxaa la dhahay Falastiiniinta arrinteeda uu si daran ula dagaalami doono
يا كل هرحوجا ويسألينيين إنك السؤال أيها لفتي أي دمبي وحكول هايان أو هوكي ودت كل جولين كينيا وحوي كون كله وحوي حوجا العلينين لكن كان هذا فلسطين دم بيجريسو مركا أنت فلسطين وحنت هاي مركا عربت حاجة جبت مرينك أستقع عضية يا حوله ودت حوله هوي على سريع ما واكنا سوي جدا أرتيكا كان بحاجة جيني مركا سوي تقول جدا مقابل حاجة دير بانودا أو كويلا قبل ميشيغان marka sida u badan yihiin hal dhahay Trump oo codeeyay baalda ya waa ninkii balan qaaday inuu arintii si Israa'iil inuu Israa'iil taageeri doono boqol ya ayadoo isas tahay carabta xagga joogtay asaga baa codeeyay ya alhamdulillah wadada kale xagga gaad ya la fikray meeshan xoolonimo loo dhaqmaya marka maanta waxa weeye Trump kula jiray waxay ku badiyeen xitaa aqalkii sare marka hadda waxa la tirinayay natiijadii doorashada aqalka hoose wali la tirinay laakiin saddex aqalka hoose aqalka hore aqalka sare isku qaataan waxa weeye Mareykanka waa baqayaan waxa weeye ninkan waxa weeye balaayooyin Kenya bay sadayaan marka ku fiican tahay Mareykanka in ayagana shabshada iyo fidnada ku fido ya marka waxa weeye ku fiican tahay ayaga laftigood inay dhibaatada ay dhimiyaan ya marka maanta qoftii maxaa la dhahay Ilhaan Cumar ayadana waxa way kursigeedii dib u soo xishay ya ayada iyo qof kale oo la dhaho Rashida Tlaib oo Falastiiniyada waxa way xaafadoodii baa laga soo doortay marka aqalkii hoose kuraasi ay ku haysteen aqalkii hoose bay dib ugu soo laabanayaan marka wakaas marka ninkii Trump ahaa oo lii dambiye badan oo culus la haystay maanta doorasho gudbiyay ya marka wakaas dadka waxa way dadka codeynaya waxa way caqli ma laha يا ويسكاش وان لا فكري يا مركا حوي وكاس أدونك حوي لا ياب ولا ياب سوالف ليكم كأدونين هذا بيجي جرتا